أيه marka kuwaas oo dhan maartay waxay geed kuleel weeye marka waa kuleynayaan maartay lafteeda marka dad badan oo horta ilaahay indhaha fariska siiyey waa jiraan laakiin wuxuu dee waa moogtahay boqorka unbaa bixiya caafimaadka anagu waxaan sameynaa waa dadaal oo keliya صح وياه marka bal nooran caafimaadkaaga wuxuu ku salaysan yahay anigu waxbarashadaydu horta geology baan soo bartay laakiin 74 ayaanaan saaxiib nahay oo qaybta waaxda dhirta isbitaal Martini jooga ayaan u tagtay jiray markaasaan waxaan ku arkay odayaal badan oo Soomaali oo dhirta ka shaqeeya markaasaan maalin maalmaha kamid waxaan idhi masaana qurbalina keena soo bartay dhirta كل ما ودياشاسي قيب بدن سحر بكشغل سنين أنا سحر ما قال واحد مركب كده هذا شيء إن واحد جيت أنت منفعة لك قاطع كبعدي قلت هذا سفر بناك هذا وإنها كتب صوغته أو تجابيه أو فيريه محا نافع هين وحيالها كتبت لفته مركب في أوبا إلا فيريه مركب واحد يعني إن كتبتي لفته دي كمان كان odayaasha Soomaalida laftooda waxaan weydiin jiray war maxaa anfacay war maxaan anfacay war maxaa kan hay'ad marka tijaabadii ugu horeysay oo ugu xog badneyd waxay ahayd in horta carruurtooda ay ka joojiyo inay isticmaalaan daawo qufac oo farmashiyo laga soo gado simbali waxaan ku isticmaali jiray malab iyo liinaan la isku daro ayadaana more effective ka noqotay oday adeerkay 77 وفندق هانكو شغالين جري يعني دور قاع كليري أفر مع الماض يوصل بحي وصل شيء سريت كليه وصل شغلتين إسبتال بقولي ده ولا وصل قرا حدود تروي وضياش ده سواري قلت له مركز ورنت عين كاس محاكا والكنا مركز سالي نرتاح السوق قالوا دبر جيل كوكري اللهم اللي بيك دبر جيل وكروس تمية مي وحوي لفها درسن وكروس كهوسية أو دبر تاعي عن فيرها هين لفتاس فيه مركب واحد عادي همين بعبي سبحتي شغلتي نيك حيالها أن أدو قرهم استمارتي أي كم هاي إندا وسومالي وأي كفي عن تاي أما كنت يرهم تاي مرة بدن داوود درتا وحي قلينا ومشيس لكن وحي كانوا داوين وحي كفي عينهين أسباب عذر كقولتي للراديو أو لحاله أو عذر كقولتها سمارتي إن لو قالوا دواء للسيديا اللهم اللي بيك شكل ماشي كل مات وحاني قاعد عاوني أقوم تفكر بدنا عن هاي سي إنجليزي كوكالة روس كوكالة جرمن كوكالة أف عربي كتبت أصلا وحوام بأخرستا كتب إنجليزي وبدن أو قري إنجليزي وقف إنجليزي وقري أو علم يشينها أنا عندي علم هندي ويكون استعماله ويلا أيوفردا أي ميرل بلد مركب قوة لفته إن وحيارات بدن أياك كورية يعني هذا جيت هندي وكله واقع بحاجتنا لكن داوم من غنا كيس كأفريقيا هلكا وحلو يغنى 240 وجيت كي أفرتك داوم لها إن هندي أنا جيت هندي وحسب على بحشوا حالي ويل كسر هندي أنا شاوري غير أو رجيت كأورا حالي عند ربنا أيوداوية يعني قلفتي بالو استعمالية حيدكي بالو استعمالية علنيه بالو استعمالية لانتي بالو استعمالية سنة مالك جيتكي لو تورمي قرقينا وحويس كودافا الواحد بالك دقيقة يهدي الرب أو تيرف أزديراكتا إنديكا مقعها لاتينكا أهي مركا إن جيدها موجودة وبيرتي إلهي قفكو هدو بحبرته وكنت دارا إنه حكفة إليستو وحبضا أيوب هاري كلام dhirtan kiimikada waxa weeye daawada kiimikada oo kiniyaasha lagu siinayaa alaaba waxaad arkaysaa cudur bay daaweynayaan cudurna albaabay u furayaan waxa weeye ayagu sidii tabiiciga ah geedku u dhisnaa u shaqaynmayo waxaad arkaysaa marar badan geed baa wuxuu qabsamaa 6 maado aan islahayn hal maado ay oranayaan soo qaado maadadii ay soo qaateen goortii daawooyin kale ku daraan ميزانكي طبيعي لها أو لها ماشي مجرو مركو واحد صوب حاجة
miisaan kala khaldan taasana aadaaba dhib abuuraysa marka sheekh waxa weeye daawada Soomaaliga wax cilmiyeeyay oo kala saaray oo kala qeybshay falsafadooda hirgelintiisa ma jira iyo sidee u kala duwan tahay daawo Soomaaliga iyo tibbi islaamiga ama meel ba iska soo galaan mise way kala duwan yihiin ma horta waxyaalo odayaasheenii traditionalka ah alaaba qofku wiilkiisa ayuu dhaxalsiin jiray if you naadir baa qof maartay cid kale wax sheegta laakiin haddana warkii waa la heli jiray wixii marka waxa weeye marar badan qiyaastu sidii la rabay maaha waxa weeye miisaankii geed kuleelka iyo geed qabowga maartay loo kala yeeli lahaa ma meeshii waa ka maqan yahay tibbi islaamigu waa qoran yahay kutubtiisu waxay soo baxday ibn Sina 380 hijriga kitaabkiisa qoray al-qanuun la yiraahdo marjic buu waxa ka ahaan jiray Yurub 500 sano oo jaamacadaha lagu dhigi jiray ragii ka dambeeyay Razi maxaan ku rahaa Malik al-Muzaffar kitaabka al-Mu'tamad qoray 700 sano yaa laga hadlayaa goortii dhinteen goortaasna daawo kasto ay sheegayaan waxay sheegi jireen daawada maxaa lagu bedeli karaa iyo qiyaas laga qaadan karaa maxay tahay iska qaada ma ahayn daawooyinka marka annaga Soomaalida waxa weeye qof dad badan oo jaahil ah ayaa dhexboodaya wixii in cilmi ahaan loo darso dad yar baa ka fikraya wixii waxa loo baahan yahay kutubta lafteeda si wixii loogu isticmaalo lafteeda in loo fahmo haatan dad badan baa waxay qudad ka qabaan subag oo kale subag waxyaalo badan ku fiican yahay hataa hindigu aad bay ugu isticmaalaan subag iska dhaaf maartay markaas wax badan laga sameeyaa waxyaalo badan kala duwan daaweyntooduna ilaa 3,000-4,000 sano ayaa laga hadlayaa shiinuhu 5,000 sano laga hadlayaa dadkii kale maartay ciraaq deganaan jiray oo wax qori jiray waxa laga hadlayaa daaweyntooda 8,000 sano waxaan marka wax ma aha maartay oday reer baadiyaha wuxuu ku duulayo waa cilmi jira oo u baahan in la fahmo siduu yahay oo aan ahayn maartay iska qaar ba dad baa yimaada marka daawooyinka qaataan daawada macallin qaadada qofkii wuxuu leeyahay dhakhtarina u biskooda rabaa maskax reer baadiyo way moogta laba qaado qaadanaya daawadii waa ku xanuunsanaya markaas oo daawadaadi waa ku dhiman lahaa wadiyaaku yiri adiga ba horta xisaabta sida ka dhig marka khaldaad baa noocaas isku jira tibbi islaamigu isaga wixiisu waa wax qoran oo la soo guuriyay oo hadba meel laga keenay oo sanooyin badan oo Asia iyo Hindiya iyo China iyo meel walba laga keenay